habeen wanaagsan Somaliland waxa ku nool oo dhan waxaan doonayaa inaan idiin soo kordhiyo idiin soo sheego wixii ka soo kordhay ictiraafkii Somaliland newspaperadii Amerikaanka oo dhan baa midba kii ka dambeeya kusoo qoraya Somaliland aqoonsigeedii ayaa aad iyo aad u soo dhow newspaper kalaas Cliver wuxuu soo qoray Somaliland waxay doonaysaa inay Somaliland waxay diyaar u tahay inay dhaafsiisato badda berbera ictiraaf si ay Amerikaanka u soo degaan labadoodaba way wanaagsan tahay. waxaa kale soo hadlay midaan kama filanaynin oo ah dadka aadka inoo nacab waxaa la yidhahdaa masaarida ku jira kuwayna nacab ayaa moogtay markay runtii meel kasta ka soo baxday bay adkeysan kari waayeen nin la yidhahdo cabdiridwaan oo London degan meel aniga fogeyn degan halka Central London degan ayaa isna wuxuu kusoo qoray newspaperkiisa aad iyo aad meel kasta waddanka carabta ku nooshahay carabka ku sheegay si degdega Somaliland loo ictiraafaya carabtii oo dhan baa imika soo jeesatay akhrinaysa imika aynu isla hadlayno ictiraafka Somaliland oo imika dee foodayna kusoo haya dee aad baan u faraxsanahay. waxaan ku leeyahay adigu way soo dhowdahay baan ku odhay waxba kama harsana ictiraafkii Somaliland maasha Allah aad baan faraxsanahay walaal iga raali ahaado ictiraafka sameeya ictiraafkiiba waxaan ma jeedaa subscribe-ka sameeya ictiraafkii wuu soo dhow yahay subscribe-ka walaal ii sameeya because waxaan gaadhsiinaynaa inaan meel fog gaadhsiinaan doonayaa channelkaygan marka waa idin barayaa sameeya kun baan u baahanahay inaad gaadhsiisaan 200 baan maraya intii subscribe ku sameeyay channelkayga oo dhan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya aad baan wallahi u faraxsanahay wixii soo kordhay mar baan idin la soo socodsiinayaa. wassalaamu calaykum.